مقالكم حسابسين يهي 10 things you should not do in Turkey. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي السلامي وصحتكم مهنا وهذا لا يسكت صنع قدنا أكسني مقال حسوب. أصحابتي حروا مقال كأني هذا كله وذاقو طبعا وحيابات أنا كسميني إن تركيا. هدي أجوبتي تركيا طبعا كان شيء وكون مهم. هدي أدوسو سعتين السيد وكلاته وكون مهم من السيوجاتي. إن شاء الله طبعا كان شيء intuu ugu badan waxa waaye waxyaabo aniga aan la kulmay ama experience-gayga aan ku soo arkay inta kale tan asxaabtayda ay ku dhacday laga yaabay tabankan shay oo aan sheegi doono qaar kamid ah in adiga kugu dhaceen ama asxaabtaada ay ku dhaceen aan gudu galno insha Allah meeshaan ay soo dhigi doonaan qodobada inta ku tixi doonaan qodobada taleefka aniga u qoriyiin taban qodob waa insha Allah tabankan qodob waxa waaye ina wax badan ka faa'iido doontiin aan rajaynaa ayaan wareed ku daalin qodobka koowaad aan galno qodobka koowaad waxa waaye hafiirin qof in badan qodobka macnihiisu wuxuu yahay macnaha hafiirin qof in badan marka aad dhahayo qof macnaha ina iska fiirisid bila macno adiga xataa wad dareemi kartaa macnaha taas macnaheedu waxay tahay qofka macnaha hadii aad fiirisid wax 3 sekin ama 2 sekin ama 3 sekin wax ka badan aad qofka fiirisid macnaheedu waxay tahay dagaal hadii aad runtaa marka inaan macnaha waxa daran qofkii ina fiirisid qofka 2 sekin hal sekin hada qofka fiirisid waa caadi waxba loo ma arka laakiin waxa daran qofka 3 sekin wax ka badan ina fiirisid taas macnaheedu waxay tahay qofka hadii intaas ka badan ay fiirisid waxa laga yaabaa in dagaal iyo waxaas macnaha damacsan tahay wax saasi marka qodobkan qodob saas si weyn maaha laakiin waa qodobkeena koowaad qodobka labaad hada ugu galno waxa waaye ha ku jeestin dadka Turkida macnaheedu waxay tahay jeeski caadiga maaha بس وحياة بدن أو جس أو لجمع أياجرو إسلام مركزين عن إنديه نكو أركي أم إنديه كم كو أركي إسلام مركزين إن عبيهن معنا إن الوصل مايو تصالحان إن قف وتكتيد أو دكان كيس أجشيد علاب وحياة بالله مده أسوف في رسيد كدب علابتي أم شيء معناها عبار لجوتيد كدب مركي أشيء قيمي سوي أو يسيد وكو أفعل وايو معناه هذا ما معناها بدن كود ضد كيني تاي لكن ضد كخار مركي أول ما تتوقع هذه alaabtaan u baahanahay kadibna alaabtii wixii uu ku soo qabto waxyaabo badan oo ka caawiyo oo alaabtii kula soo qabto oo maxay ku soo diyaariyo kadibna aad hadid uma baahni alaabtii taas macnaheedu waxay tahay ina xoogaa ku jeestiso oo jeestisir oo muujisay markaas waxa laga yaabaa in uu ku waxana qofkaas kadibna dukaankii orday iyo bax oo ku dhaho iyo qeyli iyo waxyaabo saasi inuu kugu sameeyo marka macnaheedu waxay tahay jeestiska meel badan oo galaa marka jeestiska way nacibiin dadka Turkida ah Turkida bisna maaha adduunka oo dhan qof in lagu jajeeso ma fiicno balse waa qodob kamid ah qodobada 10 ah oo maanta in ay soo jeediyo meesha u soo fadhiistay qodobka saddexaad wuxuu yahay ha kala hadlin arrimaha siyaasadda macnaheedu waxay tahay qof Turki ah hadii aad asxaabtiin ama is aragtiin badanaa Turkida markay ku arkaan waxay ku weydiinaan meesha aad ka imaatay magacaadii waxyaabo lamid ay ku weydiinaan iyo xogtaadii wadankaada iga sheekay macnaheedu maaha markaas in adigana siyaasad iyo waxaas la gashay wadankaada xog ku saabsan oo ku sheega adaa weydiisay wadankiisa adigna sidoo kale oo sheegi kartaa balse waxyaabaha ay sida zaidka macnaha aysan u jecleen waxa waaye in laga hadlo arrimaha siyaasadda ku saabsan ama siyaasadda dalkooda haato ama dalka kale haato badana macnaha ma xiisayaan hadii siyaasadda kale hadin waxa laga yaabaa in qofka uu ka gaabsado ama macnaha oo iska boojiyo marka qodobkaasna qodob kamid ah qodobadeena qodobka kaleeto oo shanaad waxa waaye qodob xawaa faniska marka qodobka shanaad halkaan soo dhigi doonaa sigin sidoo kaleeto hakam sirsiinin macnaha qodobkan macnihiisu wuxuu yahay Turkida waa dad aad u masir badan sidee ugu sirsiin kartaa qof Turkiya qofku waxa uu masirsiin kartaa tusaalaan hadda waxaa jirto qisir oo ku dhacday gabdha asxaabnahay oo intii la jooga Ankara gabdha waxay sameeyeen bas ay saarnaayeen marka gabadh Turki ah iyo ninkeeda oo isla socdo ee fiiriye marka macnaha ninkee fiiriye marka gabdha waa la marka xogaa caayisa lagu fogaadin laakiin waxa la akhlaaqdiina waxa way hooseysaa marka qof Turki ah kama sirsiin macnaha lamaanaha afaarooda galeen macnaha sidoo kaleeto Turkida bis maahan adduunka oo dhan waa sidaas ama wadan walba Soomaaliya hadaan ahayn taas waxa waaye anaga xataa meesha naga marayso waan naqaana qodobka marka macnihiisu waxay tahay qof Turki ah kama sirsiin hadii kaleeto waxa waaye ataa gareena qofkaas waxa laga yaabaa inuu ilkaha ka daadiyo marka qodobkan oo qodobka shanaad
qodobka lixaad waxa waaye ka raaligeli qofka macnaha raaligelintu waxay tahay macnaheeda qofku waxa laga yaabaa wadada adigoo maraysiin inaa macnaha isku dhacdiin ama garabka isku dhufsatiin macnaheeda maahan inaa kasii socotiin siiba wadankan qofka haddii garabka isku dhufsatiin raaligelina aa ka bixi waysid ama saaxib iga raali noqo aad dhihi waysid waxaa laga yaabaa inuu u arko inaa isla weyn tahay oo jeesiyas ku samaynaysid tanna meeshaan bismaa sidoo kaleeto waa qodob dadka dhan ay ka wada sameeyeen qofka haddii garabka isku dhufatiin raali hawadaadan dhihin in macnaha wax kale uu arkaayo marka raaligelintana saas ayay muhiim u tahay inta wadankan joogtid qofka haddii qalad yar aa ka gashid iska raaligeli haddii kaleeto inaa isla weynta u malaynaa qodobka toddobaad oo mawduucayna kusoo qaadan doono waa kana ha kala hadlin arrimaha kurdida aniga xataa in la maqla ma rabo kurdida sida ogtiin waa dad wadankan ku nool oo ayagana turki ah macnaha turki iyo kurdida waa laba qowmiyadood oo wadankan ku nool macnaha qowmiyad oo kurdida 20 milyan iyo wax saas oo la mid ah waaye wadankan ay ku nool yihiin marka waxay rabaan inay noqdaan dawlad madax bannaan laakiin dawlad turkiga oo ma ogolo inay noqdaan dad madax bannaan marka taas macnaheedu waxay tahay dadka turkida ah kurdida waxay u arkaan dad macnaha amniga turkiga kasoo horjeedo oo argagixisa camal ah marka ha kala hadlin arrimaha kurdida ah sababtoo ah waxaa laga yaabaa haddii aad kurdida kala hadashid oo su-aalaha ka weydiisid oo kurdida ama aafafaanisid waxaa laga yaabaa in meeshaas dagaal uu kaaga imaado ama lagu xiro ama waxyaabo adi sharciga lagu qabto marka ha kala hadlin arrimaha kurdida ah sababtoo ah dadkan way isnacab yihiin kurdidana turkida way necab yihiin turkidana kurdida way necab yihiin hal wadan ayaynu isku noolyihiin sidaas ay tahay marka aniga qodobkan waxaa halkan idinku soo daray anaga Soomaaliya nahay meeshaan waxaa ugu noolnahay dadkan wadankooda inaan wax ku barano ama ku noolaano marka inta meeshaan joogtid ha dhaxgalin labadaas qowmiyadood labadoodaba la dhaqan balse labadooda ha ka dhaxalin macnaha ayaga macnaha isku mashquulaan laakiin adiga ka dhaxbax albitra ka noqon marka ciyaartooda qodobkeena toddobaad waa kaas qodobka 8aad ilaali sharafta calankooda calanka turkiga dadkan sida og tahay waa dad wadaniyiin ah qof walba calankiisa uu jecel yahay adduunka qof walba oo joogo Soomaaliya ha ahaado Chinese ha ahaado ama Turki ha ahaado calankiisa uu jecel yahay qof walba marka taas macnaheedu waxay tahay dadka turkida ah taas ama calankooda level zaid ah ayuu ka taagan yahay ama heer fiican oo ka taagan yahay calankooda way jecel yihiin qof aan calankiisa jecelayn ma jiro marka waxaa laga yaabaa in calanka adoon isdheeyeen waxaan wax dhiba ma lahan ama calanku kaleeto inuu dhulka kaaga dhaco ama adoon macnaha ka seenin calanka waxa ku sameeysid kadibna laga yaabo qof turki inuu ku arko kadibna as dagaashin oo meesha dagaal uu ka dhasho haddii calankooda waxa ku sameeysid waxa laga yaabaa in goob ay kugu dilaan ama intii ku aragtaa oo turkiga ay ku dilaan marka sharafta calankooda ilaali turkida waa ogtiin dad walaalaheen waaye oo wax badan dawlad ahaan haday noqoto shacab ay noqoto meel walba oo walaalo ka nahay marka sharafta calankooda ina ilaalisid waxay muhiim u tahay ayaga sidoo kaleeto anagana waa waajib ay ugu tahay in sharafta calankooda u ilaalino marka qodobkaasna waa qodobka meeshan waxa uu soo daray in calankooda ay jecel yihiin qof walbana gurigiisa uu suran yahay calanka turki ama calanka wadankiisa marka qodobkana waa kaas qodobka ku xigo oo sagaalaad waa qodob ay Soomaalida said ugu badan yihiin Soomaalida wadankan joogto ma aqaan wadamada kaleeto laakiin wadankan turkiga Soomaalida joogto Istanbul waa kusoo noolaaday ama waa soo joogay Ankarana haddaan deganahay gobolna waa tagay sidoo kaleeto laakiin qodobkan waa qodob Soomaalida badan ay sameeyaan waa in lagu dhaxalo baska macnaha ku dhaxalin sababtuna waxay tahay baska inta la saaran yahay ama turki ha saarnaado ama ajnabi kale ha saarnaado ama Soomaali ha saarnaadaan dadka kaliya oo hadlo waa Soomaalida macnaha turkida marka qaar way hadlaan laakiin markii ciyaalka yararka iyo dhalinyarada iyo ay kula saarayeen baska badana ay si yaqaanaan inay hadlaan waa laga yaabaa laakiin Soomaalida maadaama aas wadan qaano wadankan maxayto badana maxayto ajnabi meesha maadaama ku nahay waa ina macnaha badana dadka way si yaqaanaan waa arrin muhiim ah marka taas waxay keenaysaa in gurigan oo kale hadda aniga joogo afar qof amal ugu baxno kadibna magaalada aadno hal bas markaas aan raacnana hal kursi aan wada fadhiisano kursigaas marka wada fadhiisano ama hal leen hadalkeena ama isqsi wadano marka hadalkaas badana haddii baska ku dhaxadashid waxa la kulmi doontaa jawaab degdeg ah macnaheedu waxay tahay qof walba oo baska saaran uu ku arkaa waayeel ha ahaado ama dumar ha ahaado ama rag ha ahaado macnaheedu waxay tahay
walaal aamus please aamus laguma dhahayo iga aamus lagu dhahaa macnaha waana sharci daro in bas lagu dhaxado macnaha sharci daro saas maaha laakiin waa akhlaaqda qayb kamid ah waana muhiim in ay ilaalino maadaama meeshan ay tahay wadan aan marti ku nahay macnaheedu maaha marka ina sharciyada iyo dadkan ayna dhibsadaan marka qodobkaas waa qodob aad iyo aad u muhiim ah oo Soomaalida ay sameeyaan qodobka 10aad ee barnaamijkan ku soo qaado doono waa qodob asigana sidoo kale aad iyo aad muhiim u ah qodobkan waxa sameeyo badanaa dadka guryaha degan yurtooyinka wadanka marka la joogo yurto waxa la laayo ajirto guryo dawladana ay leedahay kuwa qaarna ay shacab ay leeyihiin oo macnaha apartment ama dabaq oo dhismo dhameystiran kadibna sariir loo keenayo badanaa ardada ay degto balse kuwaas maadaama ay maamul leeyihiin qof walbana qol oo kaliya oo degan yahay buuq ma ka dhalanayo laakiin markii ay noqoto baasha in guri la wada degan yahay ama asxaab ay guri wada degan sida anagoo kale tadirtaan guri macnaha inaad isku darsatiin asxaab kadibna asla degtiin taas waxay keenaysaa maadaama 4 qof ama 3 qof oo kale guriga ku nooshiin ama wax ka badan ay ku nooshiin in macnaha buuq ay sameeyeen taasna oo diris ka dhibsado badanaa Soomaaliyeena waxa u badanahay in buuqaas ay sameeyno oo hadii 3 qof oo Soomaali ama 2 qof oo Soomaali meel isku ku kulmaan ama wax ka badan buuqayna uu badan yahay waasna qaanaa dad macnaha is barnaamijin marka badanaa waxyaabaha laga soo sheegto waxa waaye in Soomaalida macnaha guryaha degan diriska inay macnaha buuq ku sameeyaan oo macnaha buuq qaylo zaid ma xataa sidoo kale ay daaran music iyo waxyaabo lamid ah badanaa dhalinyarada waxa sameeyso qodobkaasna waa qodob aad iyo aad muhiim u ah ay Soomaalida badankooda ay sameeyaan marka insha Allah 10 qodobkaas qodobka ugu dambeeyana waa muhiim diriskaada ilaali sidoo kale rasuulka kaleey salaatu wasalaam sida u tiimbo diriskaada waa inay ilaalisid hadii uu muslim yahay iyo hadii uu macnaha gaal uu yahay ama kaafir labadaba waa inay ilaalisid sababtoo ah diriskaada xaq ayuu kugu leeyahay marka anagoo akhlaaqda nabiga ka faa'iideysanayno waa inay ilaalino qodobkaas ah diriska wax walba oo sameynaysid tartiib ku ahaato aniga diris kama soo sheeganaysid laakiin adiga yuusan ka soo sheegan marka 10 qodobkaas إن شاء الله وحرجينا إن تمن كان قضب وحبضنا كفايدين برامج كان تمن قضب أنا إن شاء الله وكسو دياري دونا ودن كان أنت أجوه حدي محياته قضبنا كفايدي وح أما أين هي قضبة عادية بقى أسكو عرقتي فضلا كدكتورنا قضبنا تد كان تركيا على نون لهنا إن قدرنا وهاي سيدا أيجا بنو قدرنا يعني ودن كودنا كسولويان intaas ayaa maanta rabay in ay la wadaago waa kuma santiin daawashada muuqaalkan inta muuqaalku xiga kulmi doona dhamaantiin waxay idin tagayaa sidaas iyo nabadgelyo bis